marka hadda askari dili jiray haddaan galno dhammaan askarta mida dilin may si loo garaacayo inuu soo bandhigo si loo garaacayo inuu kaliya loo garaacayo marka geeyo operation attack geeyo habeen waxa dhacay laba boqol baa loo soo saaray xabista labada boqol inta biyo lagu rusho ee la dul maro digta laga dhigo ya iyagoo qaabo baa guriga isku xiray. So what we have is approximately 25 hours of footage from that 11-day assessment, and it provides very damning evidence of the acts that are committed inside that jail. The majority of the detainees in jail Ogaden are there because of perceived support for the Ogaden National Liberation Front, which is an armed opposition group. markii la bixiyo meel halkaas oo madow baa la geynayaa waxaana lagu su'aalayaa marka horeysa ururka onal waxa tira waan taageersanaa waan jecelahay marka tira anigu ma jeceli mana taageersani waxa lagu xidhayaa labada luqad katiinad baa lagaaga xidhayaa labada gacanood katiinad baa lagaaga xidhayaa si aadan u nuuxnuuxsanooda u dhaqdhaqaaqin Soomaali fig baa lagu dhahaa waa la figeeyay marka figta lagu haya gacmaha ayaa la isku xidhaa waa taas hadda saas igu taala tan kalena waa sidoo kale. The other piece of information critical for this report was interviews with almost 100 people, 70 of whom were detained in jail Ogaden. badeel baa saa loo dardarayaa sidii gobashi baa marka saa loo fidinhayaa kadib marka dadkii qofkii oon ka carcarari karin oo labada gacmoodna ka katiinadaysan laba lugoodna ka katiinadaysan baa dabkii lagu galgalsiinayaa si uu ma aragtay ugu gubto oo intuu cabsado waxa laga raadinayo uu sheego. new booliska iyo booliskuwa dadka intay isu keenaan oo qaawiyaan oo ay isku xidhxidhaan bahalka kaga xidhaan guska kaga xidhaan xarig oo midba mid xariga ku jeedo yaa budad bay la dhacaan la dhex qaadaan marka labaad way seexiyaan new boolisku iyo booliskuba intay seexiyaan dadka si guud oo dhammaan shafka ay dhulka u saaraan xabadka iyay ku dul ordaan oo dhex socdaan buriyayaan dhoobadana ku galgashay yiraahdaan. A number of prisoners described being taken for individual interrogations in room number 8. This was a room that was had a series of very small rooms. A number of people described being chained to the wall of that small room. It was dark, they could not see any light. Waxa laga yaabaa inta kor lagu qaado in madax lagu soo fooruriyo sida lagu fooruriyo oo lugahaagina kor laga soo lulo. waa biyahaas iyo sawirkii oo qabow oo biyo intii la mariyay qoyan oo aad dhex taagnaan adoo kor lagu xidhin tagtinada ugu xidho kor laga soo lalminayo. Another technique that was described to Human Rights Watch by multiple prisoners was being submerged in cold pools of water that were in between the two walls inside of jail Ogaden. barkada marka biyaheedu waa baraf qabow sida hadda barafka kulku halkan ka daayo oo kale qabowgaas aniga wax lagu qaboojiye ma garanayo laakiin inay qabow tahay baan arkay halka rag iyo dumarba marka lagu guraya dadka waa la qaaqaawinaya oo maryaha laga wada furaya. There has often been silence from Ethiopia's government on the abuses that security officials commit. But in mid-June, Ethiopia's new Prime Minister Abiy, admitted that torture was a problem in Ethiopia's place of detention in an address he gave to Parliament. This is a really positive step. But what we hope now is that the perpetrators identified in this report, including the Somali regional president Abdi Ili, are held to account for the abuses that happened there.